السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحود دبا السعوداء عشر أنا هذا لي tuberculosis وأنا كذا هذا لي وحيالها كينا iyo qaabka u saameeyo sanbada soo marka cashirkan waa cashir gaaban oo aan uga hadlayno daawooyinka loo isticmaalo tuberculosis sida mar hore idin sheegayna waa digniin waa cashir loogu talagalay qofkii wax baranaya oo kaliya ma ahan cashir fikrad caafimaad laga qaadan karo qof uu isku daaweyn karo haddii qof uu xanuunsan yahay waa inuu u tagaa qof clinician oo daaweynaya soo marka daawooyinka tuberculosis loo isticmaalo gaar ahaan first line macnaha kuba oo معناها multi drug resistant anti tuberculosis aan qabin macnaha bacteria hayso oo tuberculosis u keentay inay tahay mid ay karto daawada waxaa jirto mid aysan daawada karin soo marka daawooyinkan waxa waa first line ama kuwa ugu horeeya loo isticmaalo in lagu daaweeyo kuwaasna waxay kala yihiin isoniazid iyo rifampicin oo la isticmaalo muddo oo 6 bil ah iyo ethambutol pyrazinamide streptomycin marka daawooyinkan wadamo badan waxaa jira waxay isticmaalaan afartan oo kale hadda wadankan ingiriiska oo kale lagama isticmaalo streptomycin kama mid aha daawooyinka oo loo isticmaalo first line ka waxaa la isticmaalaa isoniazid iyo rifampicin oo 6 bil la isticmaalo iyo ethambutol iyo pyrazinamide soo marka hadaa fiirisid regimenka oo daawooyinkan anti tuberculosis-ka waxay qabaan magac iyo xarf loo soo gaabiyo ethambutol oo kale sidoo kale waxaa loo yaqaana EMB ama isoniazid INH ama H iyo wixii la mid ah soo marka haddaan hor usii socno saan hor usoo sheegnay marka daawooyinka ugu muhiimsan ee antibacterialka ah oo hadda la isticmaalo oo first line ka ah waxaa waa isoniazid iyo rifampicin saan hor usoo sheegnay waa first line 6 bil ayaa la qaataa haddii bacteriadaas oo still oo susceptible ay tahay susceptible waxay tahay inaysan ahayn bacteria oo aysan waxba ka taraynin isoniazid resistance bacteria daaratid inaa baratid cashir waxaa jira microbiology aan ugu soo hadalnay waxa ay yihiin resistant bacteria iyo qaababka oo bacteriada oo resistant ay ugu noqoto daawooyinka oo antibacteria ah soo marka si la mid ah rifampicin ayadan waa 6 bil pyrazinamide iyo ethambutol waa ayagana first line labada bil oo hore ayaa la qaataa soo marka labada bil ugu horeysa qofku wuxuu qaadanayaa 4 daawo afarta bil kale oo soo harteen wuxuu qaadanayaa labadan oo isoniazid iyo rifampicin oo isku noqonaya 6 bil oo treatmentigaas oo kala baxaya marka wadamo badan ayaa waxay leeyihiin wax loo yaqaano dot ama direct observed therapy taasoo ah in dadka oo ay imaadaan clinic oo daawadii ayagoo macnaa loo jeedo ay qaataan si loo hubsado qofkaas inuu daawadii qaadanayo uusan joojinaynin daawada sida for example dadka oo homeless-ka ah oo darbijiifka ah dadka alcoholism-ka qaba dadka aan la isku haleyn karin macnaa dadka oo cudurrada madaxa qaba oo kale waxaa qasab ah marka observation in lagu sameeyo inay daawadii qaataan dot ayaa loo yaqaanaa marka dadka qaarna marka non supervised ay qaataan oo guriyooda u qaataan daawada lagu siiyo soo marka isoniazid waa daawo aad iyo aad oo u fiican oo tuberculosis mar laga imaado marka concentrationkeed uu badan yahay way dishaa bacteriada qaabkay u dishana waxay tahay cell wallka ayay macnaa baabi'isaa oo tuberculosis macnaa mycobacterium tuberculosis cashirkan dul istaagayno microbiology iyo cell wall waxa uu yahay hadaa rabtid microbiology ayaa u laaban kartaa marka isoniazid waa enzyme inhibitor waxay inhibition ku sameysaa cytochrome P450 oo P450 loo yaqaano hadaa rabtid inaa ogaatid fikradahan oo enzyme inhibition enzyme inducer haddana waxaan ku tilmaamayaa cashiro waxaa jira pharmacology oo aan ku sharaxnay waxa uu yahay enzyme inhibition iyo enzyme inducer haddii aadan aqoon soo marka waa enzyme inhibition wuxuu badiyaa concentrationka daawooyinka kale sida oo carbamazepine oo kale oo loo isticmaalo epilepsy ama qalalka theophylline oo loo isticmaalo asthma ama COPD waxaa kaloo ogaataa in isoniazid loo isticmaali karaan naagaha uurka leh waxay keeni kartaa in nerviyaasha oo jirka oo sida lugaha oo kale gacanta oo kale qofka xanuun oo kaga imaado soo marka waxaa muhiim ah in lala qaato daawadan loo yaqaano pyridoxine ama vitamin B6 waxaa kaloo jiro dadka oo beerka laga haayo oo beerkood halis u yahay macnaa oo beerka ka dhintay in oo si caution loo isticmaalo sababtoo ah waxay keeni kartaa in beerka wax ay yeesho laakiin qofka beerkiisa caadi u shaqeynayo wax dhibaato ma lahan rifampicin ayadana si la mid ah waxay xirtaa ama joojisaa
macnaha RNA polymerase DNA-ga markii transcription lagu sameynayo waxaa loo bedelayaa RNA so enzyme-gaas marka oo DNA-ga RNA u bedelo ay waxay ku sameysaa inhibition laakiin waa selective sababtoo ah bacteriyada iyo biniaadamka waxay leeyihiin RNA polymerase laakiin labada enzyme ayaa kala duwan shakliga noocood so marka si selective ah waxay target gareysaa Mycobacterium tuberculosis enzymekiisa waana aad iyo aad ay active u tahay haddii macnaha oo bacteriyada oo aysan ahayn resistant waxyaalaha muhiimka in la xasuusto rifampicin waxay tahay in oo enzyme inducer ay tahay oo ay badiso macnaha enzymeyaasha oo ku jira beerka oo si P450 ah taas waxay keentaa daawooyin badan inay ka dhigto useless oo aysan waxba taraynin so marka enzyme inducer darabtid saan usoo sheegnay pharmacology-ga u laabo marka interaction badan ay leedahay haddaa aragtid enzyme inhibitor ama enzyme inducer macnaheed waxaa waaye daawadaas daawooyin badan ay isla falgalaan oo ay tahay in la kala ilaaliyo ama dosage-ka oo la bedelo rifampicin waxay kaloo sameysaa in oo color ay u yeesho kaadida oo orange oo kale uu noqdo waxaa kaloo badanaya daawooyin dadka oo resistant ku ah ama bacteriyada oo resistant ku ah rifampicin wadamo badan ayaa jira oo aad ugu batay resistant oo rifampicin marka taasna waa in la xasuusnaadaa oo la ogaadaa in oo daawada qofka la siinayo uusan resistant ku ahayn si daawo kale alternative ah loo siiyo waxaa kaloo muhiim ah in la jeeggareeyo beerka iyo wadnaha inuu si fiican u shaqeynayo sababtoo ah dhibaato ayay gaarsiin kartaa si la mid ah paracetamide ayadan waa daawo oo loo isticmaalo muxuu ahaa tuberculosis markii lala isticmaalo isoniazid ay isxoojiyaan macnaa paracetamide isoniazid waa isxoojiyaan habkay u shaqeynayaan waxyaalaha qaar side effect laakiin oo dhif ah waxaa jira oo loo yaqaan idiosyncratic hepatotoxicity taasoo ah in oo beerka ay dhibaato gaarsiiso laakiin waa wax ree ah soo qofka marka uu u baahan daawada waa in la siiya ayadoo marka oo aan loo fiirinaynin inay keeni karto sababtoo ah waa wax dhif ah ethambutol ayadan waa daawo kamid ah daawooyinka tuberculosiska waa daawo qadiim ah aad iyo aadna u fiican resistantgeedna aad iyo aad u yaryahay soo marka halka muhiimka ina xasuustid waxay tahay waxa loo yaqaan optic neuropathy waxa waaye in dhaawac ay gaarsiin karto optic nerve macnaha neerfaha weyn oo isha ka qaada sensory macnaha ka qaada in oo dhibaato ay gaarsiin karto waxaa muhiim ah ilmaha 5 sano ka yar oo aan garan karin in indhood ay isbedeleen aragood u yaraaday ama vision fieldgood u yaraaday inaan la siinin macnaha ethambutol waa daawo fiican laakiin cunug 5 sano ka yar waa in oo muxuu ahaa caution badan ay u baahan yahay sababtoo ah hadda qof weyn hadduu yahay cunug 5 sano ka weyn haddii indhihiisa aysan waxba arkeynin oo problem ku yimid waa sheegi karaa laakiin cunug 5 sano ka yar aad ay u adag tahay haddii oo ethambutol induced macna optic neuropathy ay ku dhacdo waxay kaloo u baahan tahay kelida in oo monitoring lagu sameeyo haddii qofka oo kidney disease iyo waxaas uu qabo oo muxuu ahaa aysan dhibaato kasoo gaarin soo marka waa waxaan soo sheegnay rifampicin waxay joojisaa RNA polymerase isoniazid cell wall ay inhibition ku sameysaa ethambutol cell wall inhibition ku sameysaa paracetamide saan hore usoo sheegnay waxay xoojisaa isoniazid habkay u shaqeyso oo complete ah ilaa had lama garanayo laakiin waxaa la arkay markii paracetamide oo lala qaato isoniazid in oo si fiican ay u shaqeynayso soo marka kuwaas waa haddii daawada ay shaqeynayaan afartan haddii daawada ay si fiican u shaqeynayaan marka kasoo qaata haddii qofka uu qabo multi drug resistant ama extensively drug resistant tuberculosis soo marka waa laba eray oo la isticmaalo multi drug iyo extensive drug multi drug waxaa loo yaqaanaa haddii isoniazid iyo tuberculosis oo bacteriyada resistant ay ku tahay waxaa loo yaqaanaa multi drug resistant tuberculosis extensively drug resistant tuberculosis waxaa loo yaqaanaa daawo aysan waxba ka taraynin isoniazid rifampicin fluoroquinolone so for example oo kale daawooyinkan oo fluoxetine iyo ciprofloxacin iyo oflifloxacin ayaa waxaa loo yaqaanaa fluoroquinolones iyo daawooyinkan oo ah aminoglycosides oo amikacin iyo kanamycin iyo capreomycin haddii afartaasba aysan waxba ka taraynin oo first line ah ama second line-ka ah ayaa waxaa loo yaqaanaa extensive mar labaad aan ku celiyo multi drug waxaa waaye haddii isoniazid iyo rifampicin aysan waxba ka taraynin waxaa loo yaqaanaa multi drug haddii
oo isoniazid, rifampicin, fluoroquinolones iyo aminoglycosides aysan waxba ka taraynin waxaa loo yaqaanaa extensively drug resistant tuberculosis. waana yaryahay hadda dadka qaba extensive, laakiin wadamo badan waxaa jira oo aad ugu faafay extensive drug resistant. haddii qofka HIV AIDS oo kale uu qabo oo ay ku dhacdo extensively drug resistant tuberculosis, xataa sometimes 2 sano isku xigta ayaa daawada la siiyaa oo aan waxba ka taraynin. waa daawooyin oo third line iyo fourth line ah oo aan waxba ka taraynin. amoxicillin iyo waxaas ayaa loo isticmaalaa oo bacteriadii macnaha oo ay ka badbaadi karto aysan waxba u dhibeynin. so marka waxaan dhan waxaa loogu badbaadi karaa dadka haddii first line oo tuberculosis ay ku dhacdo in daawada ay dhameystaan oo 6 bil si xiriir ay u dhameystaan. qofka iskaga shakiyana in oo daawo 6 bil uu qaato si umada oo dhibka uu iskaga celiyo. so marka saan hore usoo sheegnay, marka haddii isoniazid aysan shaqeyneynin oo resistant bacteriada ay ku tahay, rifampicin ay ku tahay resistant, waxaa la isticmaalaa para-aminosalicylic acid, fluoroquinolones, cyclic peptides, aminoglycosides sida amikacin oo kale, cycloserine iyo thioamides. so marka saan soo sheegnay, daawooyinka ugu fiican tuberculosis loo isticmaalo waa daawooyinka first line-ka ah, kuwaas oo kale ah isoniazid iyo rifampicin, ethambutol iyo pyrazinamide. waxaan oo dhan oo kale kasoo haray oo second line iyo third line iyo fourth line-ka ah waa daawooyin la iska isticmaalayo, laakiin oo macnaha tayadood marka loo fiiriyo kuwaan aysan u fiicneen, saas u fiicneen, oon qofka u baahan yahay inuu qaato muddo aad u dheer sida 9 bil oo kale, ama xitaa dadka qaar oo waxaa la siiyaa 2 sano oo xiriir ah ay daawooyinkan qaataan, oo daawooyinka xataa laga yaabo side effect ay u keeneen in dhibaato ay kasoo gaarto. waxaa qiyaasi kartaa aminoglycosides oo ah daawooyin oo halis ah oo u baahan in injection qofka lagu siiyo, sababtoo ah aminoglycosides waa injectable, daawooyin ma aha oo kaniini oo kale oo la qaadan karo ama sharoob oo kale, waa in xirbad lagu duraa. marka waxaa qiyaasi kartaa daawooyinkan oo halis ah oo side effect badan leh, rhinotoxicity, ototoxicity ay leedahay, oo 2 sano oo lagu duraayo. marka waxaa qiyaasi kartaa in ayagaba laga yaabo in dhibaato ay ku keenaan oo wax laga daaweynayo ma ahe dhibaato kale ay ku keenaan. si lamid ah fluoroquinolones oo kale ayagana side effect leh, muxuu ahaa dhinaca harjawiyaashaas dhibaato ay u gaarsiiyaan, beerka inay dhibaato gaarsiiyaan. so markasaan arkayna marka si waxaas loogu hortago waxaa muhiim ah in bacteriada marka horeba inta aysan resistant noqonin qofka in oo first line macnaha treatment u dhameysto oo dadka lagu wacyigeliyo oo la baro in oo daawada ay dhameystaan.